السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتي كحنا جنرال كيغا أيام قلبي أوفيشال waxaan leeyahay soo dhawaada si share gareeya oo subscribe ta saara oo like ta saara oo commentiga ka bixiya kambaleelkan u furo si aad ula socotid barnaamijyada aan aflaanta sac soo gelino meeshan oo ku maansantahay hadaa hore noola joogtay hadaa nagu cusub tahana shaqadaada qabso meeshan shaqadeedu waa like subscribe share iyo comment inta hadaa noo qaban karin aan gacli noo kala wato عوض waxaan rabaa inaan ka falceliyo ma ka hadlo clip ama isheeg maxaa la video yar oo la soo dhexmarayo baraha bulshada saacadii la soo dhaafay oo aad looga hadlay gabar leeyahay Ayni Cayuuni hadii aan qaldaneyn magaceeda sida aan ku arkay gabadha ayaan rabaa inaan maanta aan ka hadlo ama ka falceliyo sidaan u arko iyo sida ila muuqato maadaama video oo anshax xumo ah laga soo duubay oo la soo faafiyay marka waxaan rabaa inaan raayigayga iyo fikradeeda iyo waxa aan ka aaminsanahay in aan ka hadlo iyo sida ay ila muuqato bal intaan u gudub galin bal wax yar Ayni Cayuuni yaa waay waqtuma bal nala fiirsada adiga ahantiyo xabadka bartankiisa iskiga adiga ahantiyo xabadka bartankiisa arnimo xayaada xurni adiga hantiyay heesta markay soo qaadaysa aan ba ogaabayna soo xaqeeq qal soo waday bal noogu celiya maxay tiri adiga ahantiyo xabadka bartankiisa iskiga adiga ahantiyo xabadka bartankiisa arnimo xayaada xurni haddaba gabadhaas aad arkaysaan waa Ayni Cayuuni haddaana qaldaneen sida magaceeda lagu sheegay gabadha horta aniga maanta ka hor ma ana maqal marka aan arkay muuqaalka iyo gabadhan isleex marayo marka waa raadiyay gabadhan waxa ay tahay iyo waxa ay ka shaqeyso aniga marka hore waxaan u haystay wariye SNTV ka shaqeeyo baan u moodayay waa raadiyay TikTok bay ku jirtaa oo dadka TikTok aadka looga daawado oo TikTok afala saac dhex taagan oo wax ku soo duubo waaye iyo Instagram-ka meelahaas ayay u badan tahay marka hore wariyaan u haystay laakiin markii dambe aan ogaaday ilmaha TikTok dhex wareegaya inay kamid tahay meelaha taagan si kasta ha ahaatee gabadhan nin ay shukaansanaysay ama xiriir kala dhaxeeyay ayaa video ka soo duubay asaga iyo ayada oo wada sheekaysanaya wax farxad yarna abuuranayo ayaa isheeg maxaa la yiraahdaa baraha bulshada soo geliyay ka bacdi videoga waxa waaye dadkii oo dhan baa isla dhex maray aniga anoo iska dhex wareegaya maanta isheeg Facebook baan ku arkay gabadhii marka sida ila muuqato haddii aan u guda galo horta si haddii loo fiirsho waa qalad in gabar marka koowaad aad isla dhirgareyseen ama aad shukaansanaysay in aad video ka duubto ama ayadaba ay ogolaato in video laga duubo arintaas waxa waaye horta ishaga uga garaabaya ninkii sameeyayna waa nin xayawaan ayuu ahaa kaas oo ragga ceebay waana video ishaga maxaa la inuu waxa ay wax la mid ah dadka la wadaago ama gabadha sidaas sumcadeedu dilana ishaga wax qurux badan ma ahayn marka taa wiilka uga baxo gabadha ayaan ka hadlayaa inta badan fiidiyaashii ishaga maxaa la falcelinta dadka ay sameeyeen waxaa moodaa in ishaga maxaa la gabadha looga hadlayay oo la dhahay ishaga maxaa la ragga aad loogu caynayay oo si aan caadi ahayn looga hadlayay laakiin aniga ahaanteeda ishaag maxaa la ragga kaligood qaladka ma lahan sidoo kalena gabadhana ishaag maxaa la qalad ay leedahay oo sababta ay uga ogolaatay nin video inuu ka duubo ama ha jeclaato ama hala sheekaysto si kasta ay ahaato way ila qaldaneed ishaag maxaa la arrintaas ma gacanta uga dhacday oo laftigeedu aad bay ku leedahay arrintaas inay samayso sidoo kale waxaan rabaa inaan ishaag uga digo gabdhaha Soomaaliyeed oo ma arkino ishaag nimanka shukaansado ama ninka ha ku qabo ama ha ku shukaansado whatever in aad sawir ama video isla wadaagtaan waa laga fiican yahay because biri wuxuu qofkaan noqon doona ama noqon karo ma ogid you never know haddii uu kugu xalaso waa meesheeda laakiin videoga sida ii muuqatay markaan daawaday gabadha video lagu xalamahan video raali ka ahayd ayuu ila muuqday laakiin waxaan leeyahay ishaag maxaa la yiraahdaa aad uga xumahay dhankeyga videogaas gabadha laga qabtay gabadha masaakiinta ah waxaan leeyahay ishaag ninkii sameeyena stupid buu ahaa nin aad u dhaqan xun ahaa laakiin ayadan laftigeedana ila ma dhaqan fiicneen waa ila dhaqan xumeed oo hadeeba ishaag maxaa la yiraahdaa u soo bareertay video noocaas inay nin la duubto ama ka duubto laftigeeda waa dhaqan xumeed
bal ila daawada buraanbur miyaa mase gabay wax la dul saaray oo gabar kale ay dul saartay. bal ila daawada caynadii laftigeeda. waxaa aad iyo aad uga xumaay raggeeni anakina dhalay ee coorteena asturi lahaa haddii ay maanta intay video naga duubtaan. bal gabadha is oysiinaysa fiir waxay tiri raggiina dhalay oo ceebteena asturi lahaa haddii maanta video naga duubanaya inaad irga caliso haddaad adiga asturin oo adiga aadan fadeexada iyo isheeg maxaa la waxyaabaha dhaqan xumada aadan ka fogaan cid ku asturayda ma lahan. been ayaad isku oysiinaysaa aniga sida ila tahay. dhaqan xumada oo isheeg maxaa la ninka uu sameeyey waxbaa ka ogeed haddii aadan ka digtoonaa lahayd ama aad ka carar lahayd waxa maysa dhici lahayn. marka waxba been yaan lis oysiin, waxba yaan la buunbuunin. ninkuna aad u dhaqan xumaa u qaldanaay, gabadhan way qaldanayd because video inay nin la sameyso ama uu ka duubo ayay ka ogolaatay. marka waxba yaan waxaan naloo buunbuunin. waxaan isheeg maxaa la labadooda waa ila qaldanaayeen. kuwa dambe iyo gabdhaha dambena waxaan kaga digayaa nimanka noocaas inay iska ilaaliyaan iyo wax video ama wax sawir in la isla wadaago oo isheeg maxaa la laga qaato oo qof kale taleefankiisa ku haysto wax kasta dhici karo inaba no moogaa kartid. marka arrimahan aad ayaan arrimaha aan isheeg baraha bulshada ugu soo bateen fiidiyoyaal in la iska qaado oo baraha bulshada lagu daadiyo oo gabdho badan lagu dhibaateeyo. isheeg raggana waxaan kula dardaarmaya in arrimaha noocaas ka digtoonaado. in gabar walaasha ama hooyada ama waa ku dhashay ama isha hooyada waaye ama waa kula dhalatay ama waa u dhaxay ama waa dhashay. marka sabab aad video uga duubtid oo u ceebeysidna ma jirto, ayada laftigeeda meeshaas ku jirtaa, waa inaad fiirisaa. marka waa laga fiican yahay. ninka duubay ilaa hadda lama hayo ninka uu yahay. magacyo badan baa lagu sheegaya in ma kala aqaano, magacyo aad u badan lagu sheegay kulli qolooyinka TikTok waa umaleena laftigiisu. marka waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed ka digtoonaadaan ayaantan isheeg maxaa 2020 waaye aaminaad ma jirto. wixii waa xumaadeen social media si qaldan baa loo isticmaalaa meesha si faa'iido ama wax fiican laga faa'iidi lahayd dadkii oo dhan si qaldan ama xumaad ku jirto ay u isticmaalayaan dhalinyarada oo dhan. marka gabaday sharaftaada ilaaliso oo isheeg maxaa la yiraahdaa sharafta walaalaha, ehelkaaga, dadkaaga, xaafadda inaad ilaalisid waa ku qasban tahay. sababtoo ah ninkan biri ka maalin wax kasta oo ku dhaca ama saameeyo wuu ka sii soconayaa isheeg ma ku ceeboobay. laakiin qofka ku niyajabaya ama isheeg maxaa la yiraahdaa bulshada falcelin xun kala kulmaayo waa adiga. marka inaad arrintaa ka fikir weyso oo walaalaha iyo ehelkaaga iyo magacaaga iyo wejigaaga aad ka fikir weysid dhaqan xumo ayay ilaahay tahay. waana u maleynayaa waxyaabahan hadda culimada Soomaaliyeed inay ka hadashaa loo baahan yahay. TikTok-gi haddaad tagtid waxa suuxaya waxa dhoocil dhex taagan meeshaas suuxaysa haddaad aragtid wallahi billahi watallahi waxa waa qaraamaysaa. saasay kulli wada doobinayaan saas ma wax laga duubay ilaahay baan ku dhaashay. marka laga digtoonaado isheeg culimada iyo dadka dhalinyarada waxyaabaha noocaas ah isheeg maxaa la ka hadlaan oo dhalinyarada sameynayso isheeg laga waaniyo. adiga daawanayna hadda ka mid tahay ama aad ku fikiraysana waxaas iska daa oo ka dheeraaw. gabar waa walaasha oo waa hooyada oo waa u dhixi doontaa oo waa dhali doontaa. marka sabab aad isheeg maxaa la u fadeexaysid maba jiri karto insha Allah. marka waxaan leeyahay dadka qayr qaato oo isheeg maxaa la waxa fiican isfara oo bulshada waxa fiican la wadaago. Allah naga wada dhigo dhamaanteen. waa ku mahadsantiin meel kasta aad joogtaan. waa walaalkiin I am qalbi official. please hadda aad ku cusub tahay channelkayga subscribe saar, like, share, comment, gambaleelkana furo si aad ula socotid barnaamijyada aan maalin walba soo geli doono barteedaan. waxyaabo badanna waa jiraan oo naqshadeyn badan iyo dib u dhis badan channelka waa lagu wadaa. waxyaabo badan waa la soo habeyn doonaa insha Allah tacaala. laakiin wax walba aan sameeyno waxaan sameyn karnaa waxa waaye dhiirigelin